دماتين وادي سلام هيا ميل والبيتو ديود كاغا سوغنتين وواسك دقبلوها كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله متاناين حسن قرس صاحب كيس قرشو درسكيس كنو لو راونا قرسي كوسا هاجابا كجالكتي مع الشورية بناوين شان تابقة بغوري سودا وادي دمانتين وادي سلام هيا رين نبضي نرول ميل والبيتو ديود كاغا سوغنتين دمانتين سودا وادا شاقري عجلدن قارسية بيش والبا يميل بكتورة إذنكم محسن قعمها إلهي إذن مقوي جماهير تدمانتين بايدي سلام هيا سال الله سعوتان دوان وحلو دواقي قوله وزير ردا صوماليا وقارية الضباطن إيا شن وزير ووزير ردا يقوبنا مدو مقرأسي شنتي سنة لحدي سنة أمين طبانكي سنة ودا بيسي لبدي دولة ودا بيسي ووزير ردا يقوبناوي وتضباطن إيا شن وزيروي محمو لكن دو وزير ردا سي مهمدو دو وحاوية ونصدح هي أفر حقيقة النبطة سيدا عاد وضع أركتين وذا جيدان نمكا كجرو أو دان وحاوية ونمكي معناها دورشادة قبرية كمدها قديد دورشادة كمدها حلبان دي مقرسة بارلمان الصومالية أنا قلنا هذا وسي دارانين لبي هال يارنت مختار روبو إنا كهدلان دوريا مركا كوباد وزير هذا وحا كجرو قدقي دورشوينكا بارلمانكا هير فدرال رجي قبنية قدوميهودي وليبا إذا عداها كهل جري وليبا الدودي جري دوجدين سيدا خلدان وناكسنين عن مجرسة ومضى الصومالي مركا يدا كوكان عسنين قبن قابيني قدوميه قبن قابيني يا وزير هذن هذا كترسن هالكا وحكعد ومضى الصوماليين أي دريميسا إن معناه رجي دورشة إنه قبنية مسوقي إن معناه بلنقادية هيستين بلنقادية إن ما أنت لوف اليادين لما لكوسي داران مايو شغاهم بان كدونينا إن دالكينا وحو قبطان وحو ناكسن يكوسو كوريان وحان دونيا إنان أرين مانتا سوشيال ميدياها هيستي آديان صور كادار كيسان ومدحوينها قرنكا الصوماليين إيو مختار روبو أو منصور مختار روبو نيكلا يريادوي صور كادار كيسان مختار روبو وحو بحينا wax sign u eg saddex farood baa saa ugu taagan saddex farood oo kale saas ugu taagan tahay qofka daawado ama la socdo movie-yada ama magaraysa documentary-yada laga sameeyo nimanka ururada argagixisada ka tirsan marka ay dawladaha ku biiraan sida Iraq oo kale ama Afghanistan oo kale to magaraysa wadamada sida Soomaaliya oo kale taa ay urur argagixisa ka soo baxaan urur magaraysa dawladda ku biiraan waxa weeye arrimahooda sirdoonka lagama sargaari karo laakiin qofkii daawado documentary-yada ama movie-yada wuxuu dareemayaa tabta ay u dhaqmaan argagixisadaas caalamiga ashooyadaas ama movie-yada ka daawano ay signalada ay ku bixiyaan ay amiiradoodii iyo ururada ay ka tirsanaayeen ay u bixiyeen camal buu bixinay arrin badan bay keentay waana arrin jirto waana arrin macnaha dadka academiga oo dhan ay movie-yada ku arkeen filimada ku arkeen waliba filimada CIA-da iyo filimada argagixisada quseeyo ay ku arkeen weeyade sawirka asaga ku sii dheeraan maayo waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inay isweydiiso مختار روبو وحو كترسنا أورك الشباب سيدا لسه عند الدولة دي وهجامني حفظ الله مدن محمد عبد الله فرماجو يوسسو ديبي دولة الصومالية مركز جرتي يا أو مسؤول رو الشباب كسب بحي وده هذا الذي السعودي وحكم ده إن أبو مسؤول رو سلوا فصحوا أو سياسة الصومالية أو قيبقاته إن ميل بابليك إن توي ماذا إن مجرى ساي وإعلامي إن ururka xagjirka ahaa ee uu ka tirsanaya al-shabaab inuu ka baxay al-masuur robow arinta ayada waa diiday wuxuu yiri shajiraay qaban maayo meel publicna arinta kaga hadli maayo arintaas marka waxay keentay in dawladda Soomaaliya ay ka hor istaagto inuu siyaasadda ka qayb qaato ayagoo ka shakisana sirdoonka caalamka iyo sirdoonka Soomaaliyeed magaraysa oo wada shaqeynaya marka ayada tuhun galay darteed baa looga reebay siyaasaddii koonfur galbeed ee waqtigaas jirtay ee uu rabay inuu isu sharaxo waxaa timid in la geeyay xabsi guri la geliyay wada hadal dawladda Mareykanka dawladda Soomaaliya iyo mas'uul row u socdo ahaa in aan mas'uul row si loo aamino oo loo xaqiijiyo in uu intuu idaacadda yimaado inuu yiraahdo fikirkii al-shabaab in anigu aaminsanaa in ka tirsanaa jiray waan ka baxay cidda ku jirtana waxa weeye wada khaldan bay ku socotaa inuu macnaha wacyigelinta noocaas ama cadeynta noocaas
adduunyadu dhan iyo ururku ka tirsanaa ay arkayaan in uu magaranaysa idaacadda ka sheegaa wada hadalkaas socda aw Mansuur Robow arrintaasi waa diiday sababtu ku diidayna waxay ahayd maadaama communicationkii ay controlaysay sirdoonka iyo dowladda Soomaaliya controlaysay oo telefoonka ka baxaya iyo telefoonka soo galiyaba la controlayay oo uusan wax warbixin siin karin outside waxaan ka ahayn eheladiisa waxaan ka ahayn dowladda markaasi u xayirnaa aw Mansuur Robow waa diiday wada hadaladiisi waxa kamid ahaa oo dowladda Soomaaliya markaasi iyo taliyihii horeete ee sirdoonka qaranka mudane Fahad Yaasiin in macnaha loo fasaxo marka horeeto in macnaha ururadii ka yimid iyo magaranaysa xisbigii al-shabaab ee markaa uu ka tirsanaa in macnaha loo fasaxo inuu la hadlo ka dhaadhiciyo waxyaabo noocaas oo detailkeeda aanan hadda anigu sii galin laakiin xaqiiq jirta ay taana waa loo diiday ninkii ahaa Mansuur Robow wuxuu ku adkaystay inuusan idaacadda imaanin uusan dhihin fikirkii aan aaminsanaa ee al-shabaab fikirkii aan ka tirsanaa ee al-shabaab ee aan magaranaysaa dadka ku leeyin jiray ee aan magaranaysaa qadiyadiisa aaminsanaa waan ka baxay maadaama aan ka baxayna dadka hadda wadada iyo dariiqa ku socdana waxaan ugu baaqayaa inay magaranaysaa isaga soo baxaan wada khaldan arrinta ayada wuu diiday wuu ku adkaystay sidaas marka waxay keentay in dowladdii Soomaaliyeed iyo sirdoonkii markaa dalkeena xukumayay in ay xabsi guri geliyaan si uusan magaranaysaa dhibaato ummadda Soomaaliyeed u gaarsiinin asagana dhibaato loo gaarsiin sidaan la wada soconno Mansuur Robow waxa ka horeeyay nin la yiraahdo Xasan Daahir Aweys oo ay soo xirtay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud hadda jirto waagii uu madaxweynaha ahaan jiray oo laga soo qabtay gobolka magaranaysaa magaalada la yiraahdo Cadaada laga soo qabtay markii la keenay Muqdisho Xasan Daahir Aweys dowladda Xasan markaa jirta waxay asagana ay tirisida al-Mansuur lagu yiri kaleeto qiro waxa tirada fikirkii iyo wixii aan aaminsanaa ee diiniga ahaa wax qaldan bay ahaan ka baxay wuu diiday dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxay keentay in ay xabsi guri geliso odayga Daahir Xasan Aweys ilaa hadda uu guri ku jiro dowladdii markaas dalka la wareegtay uu hogaaminayay xafidullah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo macnaha dowladdii horeyso nidaamkii ay sameysay iyo nidaamka ay ku xakameynaysa argagixisada iyo ragga fikirkooda aaminsanaa ma aysan burin bartii bay ka sii qaaday si dowladnimadu ay u sii socoto oo dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma aysan magaranaysaa sii deynin ninka la yiraahdo Xasan Daahir Aweys wada hadalkii ay dowladda Xasan waqtigaas la wadoon baa la sii waday oo lagu yiri qiro ka bax fikirkan meel public ay moo ummadda wacyigeli oday Soomaaliyeed isagana waa diiday waxaa timid in dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo sidii si lamid ah sidaan hadda ka soo sheekeeyay ninka la yiraahdo Mansuur Robow la qabtay uu soo dhiibay dowladda wada hadalkii u socdana uu ka ahaa sidiina xabsi guri lagu geeyay laakiin hadda waxaa dhacday mucjiso siyaasadeed oo horay ummadda Soomaaliyeed ay soo arkin waxaa qalad ah dhiiga ummadda Soomaaliyeed iyo magaranaysaa dilka ummadda Soomaaliyeed iyo barakaca ummadda Soomaaliyeed in la isku abaal mariyo inaan laga fiirsanin inaan magaranaysaa tala fiican oo wanaagsan oo degan aanan wax lagu gorfeen oo Mansuur Robow oo la mid ah odayga adeerkay Xasan Daahir Aweys oo isku mabda ahaayeen isku talana ahaayeen diiday sida Xasan Daahir Aweys u diiday inuu public yimaado yiraahdo fikirkii qalabsanaa ee al-shabaab aan anigu ka tirsanaa waan ka baxay diiday iyo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud wasiirada 75 ah ee dhawaan soo baxaya wasiirka diinta loo magacaabay numberka 2 buu ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxay isweydiinaysaa oo magaranaysaa la isweydiinaya ninka la yiraahdo al-Mansuur Robow miyaa fikirkii uu aaminsanaa ee uu diiday inuu meel public ah kaga hadlo ee uu yiraahdo waan ka baxay uu diidanaa miyaa Xasan qaatay oo Xasan ba fikirka la qaatay ninka la yiraahdo al-Mansuur Robow oo ah in al-shabaabnimada aan laga bixin oo kaliya la garo sababtoo ninka la yiraahdo al-Mansuur Robow iyo ninka la yiraahdo Xasan Daahir Aweys waxay aaminsan yihiin al-shabaabnimada iyo ururadan diiniga xaq jirrada ah in la gala moogiyo aan laga bixin oo qalad tahay in la rideeyo oo qalad tahay in laga hor yimaado oo qalad tahay in la yiraahdo way qaldaraayeen oo qalad ayaga aaminsan arintayada marka dowladdan hadda timid ee wasiirada hadda magacaawatay sababta ay magaranaysaa ku magacaabeen ninka la yiraahdo al-Mansuur Robow ilaa hadda ma caddo adduunka magaranaysaa Soomaaliya caawiyo
mareykanka ugu horeeyo saan la socono dowladda mareykanka ninka la yiraahdo almasuur robow madaxiisa waxay dul saartay lacag gaarayso ilaa 2 milyan lacagta ayada xanibaad baa la geliyay laakiin basboon lagama dhigin oo lagama dul qaadin dowladda mareykanka garanaysa naftirkeedu waxa weeye la yaab bay ku noqotay international community la yaab bay ku noqotay sababtu uu ninkan u xiraa ee looga soo qabtay baydhabo ee uu xabsi guriga ugu jira waxay cadee oo is cadee ummadda Soomaaliyeed u cadee afisna weydiiso sheeg ummadana la wadaag fikirka al-shabaab ay ummadda ku leynayso argagixisada ah inuu qaldan yahay ninka la yiraahdo almasuur row arinta uu diidra su'aasha marka meesha taale ummaddu iyo beesha caalamka is weydiinayso waxa weeye حسن شيخ محمود يا وزير هذا صوم مقعود السيدان الله سعنا بقول كيبا بقول رئيس الوزراء عصبة هذا ضل كجوجو ومقعويان نين معها أود له نين معها وحي سكالشان ديستي نين معها مقرسها كرتي يا أود وكسر حشي وزير هذا اللي مقعابه نين له معها ونين لغو شقي سنة ونين يكين صدين نبقى كان مقرسها يا حسن يا جروب كيسة يدمر جديد سؤال شمركب ماشي تعالى واحد تعال حسن ما سا فكر كالشباب قاطي ومبادئ الشباب إن لجبهين إن الردين كرين إن لجهري ما كرين محسن الشيخ محمود أيا قاطر لقات فكر كان نيك اللي يراهدو المسور رو مسه وحكالات جرون ومد الصوماليات يسوين ودولة الصوماليات ونبى واحد لو رجع الشباب سأل الله سعنون أجنهي ومد الصوماليات إذا عندك كذا بتطليه ورتيس الدوق قركة إنه ومد الصوماليات الصقون هوري فاد ياسين إذا عاد ويبانين الصقون هوري تي في انترفيو سينين إنه أنت إذا عاد يمادو طليه ورته ويرى هذا نيك اللي يرى هذا ما حصلات حتى طليه سردوق قركة الصوماليات لقد جاي وانين معناها اللي أجيهم ولجن كده بالجرني الجواب من لا شقي سنة مجرد نيك ما هتكرتاي اللي يرى هذا لينكيس كحرة مركب مدولة دي الصوماليات اللي جور جد وينا اللي سلها مجرد هاي عبارة عن جروي اللي بعتنا ذلك كجرتو يكسرها يا معناها يسوب الدش على الشباب لا شقين تد أو حلال أمك عابيش سؤالها صدق ماشي يعني حسب وحلقات دونية أسا أورنجري مددر وين الدولة ضدك هرتي مادة وين الشعب كومضة مجرد شعب كصومالي وين الدولة ضد إسا مددر أسا كوع العدري حسن ومضة الصومالية ذي ما أنت الواقع السؤال بدن بمدح عود كل جوعي سؤالها سواها كم ده المسؤول رو ميل وكيمد ومضة الصومالية هرتي هذا وكيري أوركي أن كتر سنة الشباب وأن كبحي مجرته المسؤول رو ميل ومضة الصومالية كهر يمد وعفس كوي ديستي مجرته مدة كلام حسن ويدينا إن واحد هدانو شعب كصوماليين نهي نيك اللي يراد حسن داهر أويس أديك الصاحرتي محو حبس جوري وجرا مدة 8 سنة إلا نيك اللي يراد حسن داهر أويس يا نيك اللي يراد المسؤول روبو اسكو فكر بيأمن سنين اسكو قضيات بيأمن سنين اسكو واحدة ويديدين أو حسن داهر أويس وديدين وبابلين توي مادو ورالجلين بحيو ومدة عافس ويديستو يرادنا وانكبح أورك على الشباب نيك اللي يراد المسؤول روبو نسيدو كلا انت أسبوع سجنا دولة الصومالية ذيك كاهو الرئيسي ووحرة دولة الصومالية ذيك وقت جاي بدشينا ما يسمى كل دقائق فعل كاد هذا كل دقائق وحسن دهر وسنتي سيدي سيحلو ما يسمى جعاب هذيك مركز سؤال اللي هو يديني وحيته المسؤول روبو وكتر سنانجري على الشباب حمنوه هذا قصر سرينا كم بدها ضد بدروا الصوماليين مجرد سنة نفسد دوضنا أي أساق كم مقنتها وقرحية ودري أو تلا بدروا مقدشة كويا لضد بدروا عقول وهو تالشام وجوري اللي قول له وسر اللي جلك بحين سيدابو كم متيستي المسؤول روبو إن لقد جا وزير كدينته إن لقوه أبال مريض ديجا ومضى الصوماليات لقوا أبال مريض سيدا يكتمي تاسو نبى اللي يسوديني سيدا يبان لبضا نن اسكو فكر كأ منه ولا حبس جوري وجرا منه أد وزير يبولد بروفوسي سؤالها سو نبى ومضى يسوديني آدي ومضى الصوماليات وحلا ليه هاي قرارات كجرو وح موضوع نوع وجدان وزيردان هذا لما عابي كل دي إلهي مقرر هاي تيسا وماشى وواحد ونكسب بكسوجينا لكن ده وسيدا أركينا يقاب كهذا وحكوت بيد الرجال وزارة كحجين كي دعدها بدل النذ السودعي ما هذا جولدها ماشى الله قصان لنا نقل من عنطعنا يوم مقرر صدار كيسان إنه مقرر هاي جولسيدا شهادة الجوسرة يو ونقل هنا صاحب كجزارة ومدى الصوماليين يسوي حبك السجينين ببوسكي سلقي وزارة دي ورفافين تو واحد دبلو جوسو علي الرجل موريان تها وهو الرئيو صاحبك مقرر على العدالة ودبلو جوسو علي مركب واحد بدل يسوق كردين ديان ويكيني سجران من waxaan ka ahayn baaqa hadda baxayo ee saanka ah ee uu dirayo ninka la yiraahdo almasuur row oo ururkiisi uu asaga aasay ee mas'uulka ka ahaa uu baaqa ugu dirayo aad iyo aad wiigan intaas dhacday ummadda Soomaaliyeed dawladnimadoodii godka lagu ridayo dhan waa loo jeedaa
in magaraysaa qaadkii ummadda Soomaaliyeed baabiinaya dib loogu soo daayo waa loo jeedaa in dalkeena Soomaaliyeed ee magaraysaa rajada ka soo ifaysay meel qaldan direction-ka loo aadiyo waa u jeedaa in dalkeena Soomaaliyeed hadda dagaal uusan diyaar u ahayn dhaxbarta loo geliyay وأرنت نيل بدأ وبيجا النيل ودحيسو إثيوبيا يمجرسها مصر مدح اللوجلي واللوجي ذا عبسي بدن باع مقدسنا كجرتو ودارك إنسان قفك السياسي هذلو مدح على فجر يومها صلاة إذا بدأ أفك دوبان الشباب يوصل در يوم مدح كل فريق مركم مدة الصوماليات يا الرجال نجد إن شاء الله رجدوا والنبض ينولل يمدحونها نجارتين مدن محمد عبد الله فرماجو وصون قندورة ومدة الصوماليات نهار مر يوناك بالرجاليسة رئيس الوزراء عصمنا وحلاي أساقي بس كقرية وحنا نطقبله شيء وعن وحكلية طلادة وحاسكرها حسن سو طلادة حسن كلها هانية نحن رير يبيلد نن مثلات هاي رئيس الوزراء نحن نروح الشبطة ما 4.5 كوي ميت باتاي سياسة نويس بدشة سياسة مركز أي تاجنت وقت كذا أديو قعنت كويس وين جان كويسة وأنا طلع وأنا كسن أديو كلها حتى لكن نين مجرد ساي أير جبتها ولوش قيسانية ولا ليه ددن بد متشا يدجانا دم بد متشانا آد بيعيبو تاي حسنا سجاي شلت كور كعسري كسياسة دينية إن مقدشو يدك مقدشو